حزبي وكلمية وحزبي وحبدان دالك كقبتي وهرسيدي هرومر وهرسيدي نباد حزبي هذا كله حزبي ووداني وحيدي شيغان كرامانتا وحبو شيغان يا كلمية وحيدي شيغان يا وحيو قبتي وحيد دالك كدسي نبادو كهرقليي دالك لما يستركي دالك قوشي ودن بيسي ايشيسكي خاطونو iyo Somaliland ay ku heshiiyeen maalintii dhawayta caynaba maguul ka weyn baa jirta waa dhamaystirkii Somaliland weeyaan السلام يا دمان بالشرر Somaliland waa wada walaal Somaliland hadaw ismaaha Somaliland hal mabda bay leedahay laakiin waxa lagu tartamayaa waxa weeye kursiga ana ku fiican inaga waana ila tijaabiyay laba jeer hore u tartanay markii saddexaadna waa maanta sideed cod baynu hore uga tagnay waxaynu maanta doonaynaa inaynu sideed kun cod inaynu kaga badinaa baynu rajaynaynaa waxaan idinku hubaa activenimo waxaan idinku hubaa taageero buuxda waxaan idinku hubaa daacadnimo waxaan idinku hubaa inaad khiyaanayaal ahayn haddaad doonaysaan inaad guulaysataan ma aha inaad shamirtaan guusheenu ma aha waa sida aad codka u colaysaan aad ugu ridaan sanduuqa ay guushiinu noqonaysaa waxaynu ognahay doorashooyinkii dalka ka soo dhacay oo dhan tii deegaanka iyo tii baarlamaanka iyo tii madaxtooyada waa xisbiga kulmiye kaalinta koowaad buu ahaa waxaynu doonaynaa kaalintii koowaad ee hoggaaminta ahayd inaynu halkii haysanno qodobkan ba isku ognahay waxaynu u baahannahay xisbiga kulmiye waxaynu ku dooranaynaa waxqabadkii tirada badnaa ee qarankeenna uu ka xaqiijiyey muddadii hore teerankii hore talada dalka hayay xisbiga kulmiye waxaynu ku dooranaynaa barnaamijka siyaasiga xisbigu soo bandhigay oo ah mid qarankeenna badhaadho iyo isbeddel iyo horumar gaadhsiin kara waxaanu leenahay dhammaan ummadda jamhuuriyadda Somaliland ilaa la asqoray ilaa law yacdo ilaa hawd ilaa xeebaha waxay ummadda jamhuuriyadda Somaliland ku soo ururayaan ay ku shubayaan waxa weeye waa xisbiga kulmiye waxa lagu arkayna waxa weeye waa reega ku jira waa maxasaasi uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mujaahidiintii Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahine ka midka yihiin waxaad maqlaysaan maalmahan hadallo aan dhaqankeena ahayn hadallo aan maskaxdu qaadi karin hadallo aan jamhuuriyadda Somaliland geyn rag baa soo faqaya maalmihii madooba ee qaranka jamhuuriyadda Somaliland soo maray rag baa ka hadlaya xabaalo iyo rag la aasay warba raggaas aynu u dhiibi karnaa xisbi madaxtooyada baraga xabaalaha ka hadlaya inuu dhiibi karnaa baraga dadka qubaya inuu dhiibi karnaa baraga dadka qabaa'ilka u kala qaadaya inuu dhiibi karnaa Muuse Biixi Cabdi bisha 13 qof waliba codka ugu rido goobtanaynu maanta ka khudbadaynayno ee khayriyada Burco waa khayriyadii u horeysay ee dalka reer Somaliland ee laga bilaabay halgankii gumaystihii Ingiriiska lagula dagaalamayay Burca taariikhdaasay leedahay Burca xilka sida gaarka u saarani waxa weeye inay ilaaliso xorriyadda iyo nabadgelyada qaranka reer Somaliland horta marka ugu horeysa reer kulmiyow xusbiyada qaranka waa walaalaheen waxaan idin faraynaa haddii la idin maagana inaydaan hadlin